بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وبمنك ولطفك يا كريم، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، walaalayaal waxaan halkan ka bilaabeynaa kitaabka la yidhaahdo al-usuulu athalaathatu wa adillatuhaa. kitaabkan oo ah kitaab aada ugu muhiimsan ardada yaryar haddana aynan ka maarmi karin dadka waaweyn. waa kitaab aada iyo aada u qiimo badan oo aada iyo aada u faa-iido badan. sidaa darteeda ayaa waxaan jeclaysanay inaan halkan kusoo gudbinno kitaabkani la yidhaahdo al-usuulu athalaathatu wa adillatuhaa. wuxuuna noqon doonaa silsilad aan wadi doono hadduu ilaahay yidhaahdo, oo aan ugu talagalayno mutuunta cilmiga ah ee yaryar inaan ku duubno oon ku sharaxno oo dadweynaha muslimiinta soomaaliyeed aan usoo gudbino. marka waxaan bilaabeynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kitaabkii al-usuul athalaatha wa adillatuhaa. kitaabkani waxaa alifay lilimaam الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. sheekhaas ayaa alifay. wuxuuna dhintay 1206 culimadii soo dhawaatay ayuu ka mid yahay. haddaba kitaabkani wuxuu ka hadli doonaa fanniga ama maadada caqiidada ah ayuu ka hadli doonaa. sida aan magaciisa uga jeednana waa al-usuulu athalaatha, 3 asal ayuu ka warrami doonaa. walow 3da asal intuusan bilaabin oo uu ka hormarin doono dhowr muqadimo uu ka hormarin doono. muqadimo yacni ku saabsan marka hore 4 mas'alo iyo muqadimo kale oo ku saabsan 3 mas'alo. dhowrkaas muqadimo markii uu noo sheego ayuu wuxuu bilaabi doonaa al-usuulu athalaatha uu magaca oga dhigay kitaabka. kitaabkii oo bilowday waa kan. sheekha wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim. bismi illaahi magaca alle ayaan ku bilaabeynaa, allihii arraxmaani naxariis guud naxariista, allihii arraxiimi naxariis gaara naxariista. iclam ogow, raximaka allaahu allaha kuu naxariistee, annahu yajibu inuu waajibayo calaynaa dusheenna tacalumu 4 masaa'ila, 4 mas'alo barashadooda inay waajib nagu tahay ogow. sheekha wuxuu leeyahay iclam ogow, raximaka allaahu allaha kuu naxariistee, annahu arrinka inuu yahay yajibu inuu waajibayo calaynaa dusheenna tacalumu 4 masaa'ila, 4 mas'alo barashadooda. al-uulaa mas'alada koowaad al-cilmu, cilmi waaye. shayga koowaad ee nagu waajibayo waa inaan wax baranno oon cilmi iyo aqoon raadsano. wa huwa cilmiga macrifatullaahi, ilaahay oo la barto oo la garto, wa macrifatu nebiyihi, nebigiisa oo la garto sala allahu calayhi wasalam, wa macrifatu diini lislaami, diinta islaamka ah oo la barto, bil adillati maca aladillati, adiladeeda iyadoo ay la jirto la barto. shayga koowaad ee nagu waajibayo waa cilmi. cilmigaana waa alle oo la barto, nebigii oo la barto sala allahu calayhi wasalam, diinka islaamka oo la barto isagoo adiladiisii wata oo la socda. athaaniyatu qodobka labaad alcamalu bihi, waa ku camalfal, lagu camalfalo. waa in lagu camalfalo. ilaan cilmigii aada baratay wuxuu u baahan yahay ku camalfal, waa in lagu camalfalo. alcamalu bihi waa inuu ku camalfalo.
الثالثة مدى سدحات الدعوة إليه وإلا سويره يعني علمي إيو عمل إيو وإلا سويره وإن لي يراهدو قف كان waxa uu bartay asagana uu ku dhaqmay dadku waa inuu ugu yeeraa oo yiraahdaa walaalayaalow waxyaabahan xunxun ka soo taga waxyaabahan wanaagsan u kaaleeya waa inuu yiraahdaa waa inuu dacwo ka gutaa maxaa yeelay faa'iidada uu faa'iiday waa inuu dadka asagana u faa'iideeyaa waa inuu dadka ugu yeeraa asagana kaana waa qodobka saddexaad qodobka afaraad as-sabru waa in lagu sabro cala al-adaa dhibka oo fiihi dhexdiisa ahaaday dacwadaas iyo cilmigaas iyo camalkaas intaba sabray u baahan yihiin waa inuu ruuxa ku sabraa uu u muujiyaa sabar waa cilmi barashada sabray u baahanta camalka iyo cibaadada sabray u baahanta dacwada iyo wanaagga dadka aada ugu farayso ugu yeeraysana sabray u baahanta waa inuu marka sabraa oo dhibta ku sabraa afartaa qodob ayaa nagu waajibayso in aan ogaanoon baranno wuxuu yidhi iclam ogow raximaka allaahu allaha kuu naxariistee annahu yajibu inuu waajibayo calaynaa dusheenna tacalumu arbaci masaa'ila afar mas'alo barashadooda al-uulaa mas'alada koowaad alcilmu cilmi waaye wa huwa cilmiga macrifatullaahi waa ilaahay oo la barto wa macrifatu nebiyihi nebigiisa oo la barto sala allahu calayhi wasalam wa macrifatu diini lislaami diinta islaamka oo la barto biladillati maca aladillati iyadoo ay adilladeedu la jirto athaaniyatu mas'alada labaad alcamalu waa ku camalfal bihi cilmiga lagu camalfalo athaalithatu mas'alada saddexaad addacwatu waa in loogu yeero ilayhi ay ila alcamali waalcilmi cilmigii iyo camalkii xaggooda waa in loogu yeero alraabicatu midda afaraad alsabru waa in lagu sabro cala al-adaa dhibta oo fiihi fi dacwati dacwada ku sugnaatay wakadalika fi lcamali waalcilmi cilmiga iyo camalkana dhibta iyo dhibaatada waxay u baahan tahay sabriday u baahan tahay maxaa yeelay cilmigana sabr u baahan yahay camalkana sabr u baahan yahay dacwadana sabray u baahan tahay afartaa qodob waxaa u daliila waddaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala alle qowlkiisa ayaa u daliila ilaahi wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi bismi illaahi magaca alle ayaan ku bilaabaynaa allihii arraxmaani naxariis guud naxariista arraxiimi allihii naxariis gaara naxariisanaya oo mu'miniintiisa un khaas ku ah alle wuxuu yidhi waalcasri casarka ayaan ku dhaartay ina alinsaana insaanka lafii khusrin ay lafii khasaaratin khasaare ayuu ku sugan yahay ila aladiina kuwii mooye aamanuu ilaahay rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan oo watawaasow u dardaarmay bilxaqi xaqa u dardaarmay oo watawaasow dardaarmay bisabri sabr dardaarmay alla wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay casarka waa casar kastee insaanka waa uu khasaaray idan ereyga insaan ah qur-aanka markii la joogo mar la arka waxaa daba socota sifa oo damiime ah istitnaha wixii ka soo baxa maaane alle wuxuu yidhi insaanka waa uu khasaaray yacni insaan oo dhan waa uu khasaaray dadka laga reebi doono ma ahe ina alinsaana insaanka lafii khusrin khasaare ayuu ku sugan yahay waa jinsul insaan insaan oo dhan ila aladiina kuwii ma ahee
aamanuu ilaahay rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha suuban oo watawaasaw isku dardaarmay bilxaqi xaq isku dardaarmay oo watawaasaw isku dardaarmay bisabri sabarka isku dardaarmay. idan afartii shayba way nooga muuqataa oo ah cilmigii iyo camalkii iyo dacwadii iyo sabarkii lagu sabraayay dhibta intaba way nooga muuqataa. qaala alimaamu shaafici raximahu llah, alimaamu shaafici wuxuu yidhi low maa anzala allahu alle hadduunan soo deji lahayn xujatan xujo hadduunan soo deji lahayn calaa khalqihi uunkiisa dushooda uunan ku soo deji lahayn ilaa haadihi suura suuradda tan mooye lakafathum way ku filnaa lahayd oo way kaafi lahayd. maxaa yeelay suuraddan iyadaa wax walba jamcisay. qaala shaaficiyu, alimaamu shaafici wuxuu yihi raximahu llahu tacaala low maa anzala allahu alle hadduunan soo deji lahayn xujatan xujo hadduunan soo deji lahayn calaa khalqihi uunkiisa dushooda uunan ku soo deji lahayn ilaa haadihi suura suuradda tani ma ahee lakafathum way ku filnaa lahayd. wa qaala albukhaariyu, alimaamu albukhaari waxa uu yidhi raximahu llahu tacaala baabun haadaakani baabun waa baab oo wuxuu baab yahay alcilmu qabla alqowli waalcamali. alcilmu cilmiga qabla alqowli qowlka ka hor weeye iyo waalcamali camalka ka hor. alimaamu bukhaari wuxuu noo sheegaa cilmiga inuu ka horeeyo inaad wax ku qowsho ama aada wax ku camalfasho. shaygaasi intaad ku camalfalin ka hor waa inaad baratid. yacni qaacidada ahlusunna waljamaaca waxay tahay daliisho kadib ku camalfal oo shayga waa inaad daliil u haysato. lan cibaadadu waxay u baahan tahay daliil. cibaadada waa tawqiifiya wuxuu yihi marka alcilmu baabun haadaakani baabun waa baab. alcilmu cilmigii qabla alqowli kaa-inun waxa u ahaaday qabla alqowli qowlka ka hor iyo walcamali camalka ka hor ayuu ahaaday. wadaliilu waxaa u daliilay qowluhu tacaalaa alle qowlkiisa ayaa u daliila. alle wuxuu yihi faclam baro annahu sha'niye laa ilaaha alle xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu allaah mooye. wastakfir dembi dhaaf weydiiso lidembika dembigaagana dembi dhaaf weydiiso alle. aayaddaasi alle wuxuu ka bilaabay baro cilmi ayaa laga bilaabay. fabada'a bilcilmi waxa uu ku bilaabay alle bilcilmi barasho ayuu ku bilaabay qabla alqowli waalcamali qowlka iyo camalka ka hor. yacni qowlka iyo ficilka ka hor alle wuxuu ka bilaabay wax la yidhaahdo cilmi ayuu ka bilaabay. wuxuu yidhi faclam baro annahu sha'niye laa ilaaha alle xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu alla mooye. wastakfir dembi dhaaf weydiiso lidembika dembigaaga u dembi dhaaf weydiiso. fabada alla wuxuu ka bilaabay bilcilmi cilmi ayuu ka bilaabay qabla alqowli qowlka ka hor iyo walcamali camalka ka hor. hada wabillahi towfiiq. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.